daawadaha qiimaha badan oo waxaa kusoo dhawaataa janalka Masrax Official aad ugu barateen casharada maadada chemistry-ga. Ciwaanka aan qaadan doonana wuxuu noqon doonaa daawadaha qiimiga badan oo wax la yiraahdo alkenis. Su-aasha isweydiinta mudan ayaa daawada waxay tahay xagga dabarka marka laga fiiriyo bondiska waxaan usoo qaybinay saddex: single bond, double bond, triple bond. Alkeniska qaybtoo kasoo gala alkenisku wuxuu soo galaa labadaas jitin oo laga wado wax la yiraahdo double bond. Maadaama double bond uu yahay alkenisku asagu unsaturated, waxaan dhihi doonaa waxa la yiraahdo unsaturated hydrocarbon. Alkenis hala qeexo hadii la yiraahdo waxa leenahay are unsaturated hydrocarbon waa hydrocarbon underganayn containing waxaana ku jira at least ugu yaraan one carbon double bond. dabarkiisa marka la fiiriyo waa double bond waa kaasaa flaartu aniga u bixiyay between wuxuu dhexeeyaa carbon atoms. tusaale waxaa nagu wacan tusaalahaas hadda aan qoraayo CH2 double bond CH2 double bond. waxaan ogeyn carbon inuu afar gacan lahaa. carbon afar gacan maadaama uu lahay laba gacan oo kamid ah double bondiga ku maqan tahay, laba gacanna wuxuu ku haystaa laba hydrogen, kana waa la mid. markii hore marka loo fiiriyo alkeniska waxaan leenahay alkenis half wuxuu leeyahay fewer hydrogen, waxaa ku yar hydrogen atomka ayaa ku yar then marka la barbar dhigo corresponding alkeniska. hadda meeshan waxaa yaala waa ethene, halkaas waxaa yaala waa maxay? waa ethene. marka loo fiiriyo ethene hydrogenadeeda marka la fiiriyo way yar yihiin, laakiin markii hore alkenka waxaa loo qori jiray like this. alkenka waxaa loo qori jiray like this. hydrogenada marka loo fiiriyo waa 6 inta yaala. etheneka oo alkenka hydrogenadiisa waa imisa? halkan waxaa taala 4 hydrogen. sidoo kale alkenkana hydrogenadiisu waa imisa? waa 6. marka waxaa la dhahay alkenisku half waxay leeyihiin fewer hydrogen atom, hydrogenadu waa yar then marka la barbardhigo corresponding alkene and therefore saa daraadeed called waxaa lagu magacaabaa unsaturated hydrocarbon. hadii la dhaho alkenis maxaa loogu wici karaa? alkenisku waa unsaturated hydrocarbon ayaa loogu wici karaa. alkenis also called sidoo kale waxaa loogu yeeraa magaca kaloo la yiraahdo olefins. hadii lagu weydiiyo alkenis magaca kale loo yaqaano sheeg muxuu noqon doonaa? olefins. sababta alkeniska loogu bixiyay ama loo siiyay magaca la yiraahdo olefiniska because maxaa yeelay sababta ayaa waxay tahay they form wuxuu sameeyaa oily liquids dareerayaasha saliidda ah. alkenisku su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay hadii lagu weydiiyo waa maxay molecular formula uu yeelanayo wax la yiraahdo alkenisku? alkenis half molecular formula C7H2N ayuu leeyahay. qaacidadan ayuu ku shaqeeyaa waa C7H2N. intaan ayaa waxay noqonaysaa wax la yiraahdo molecular formula ama wax la yiraahdo general formula of alkenis uu yeelanayo. daawadaha qiimaha badan oo meeshan waxaad uga jeedaa waa member waa ka koobaad, waa numberka koobaad. number of carboniska waxaa laga bilaabay midka labaad ayaa laga bilaabay. number of carbon waa tirada carbonka waxaa laga bilaabay midka labaad. meeshana waxa waaye molecular formula mid kasta waxa loo soo gaabiyay waxa uu yeelan doono kana maxay noqon doontaa name magaca. ethene oo kale markay halkaasi taalo molecular formuladeeda maxaa loo soo gaabiyaa? waatana
ethene oo kale waxay noqonayaan qaabkan propene oo kale waa kana waxyaabahan meesha ku jira butene pentene hexene heptene octene nonene dakene dhammaantood waxyaabahan waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo daawadaha qiimaha badan oo iska xifdi haddii lagu weydiiyo what is the molecular formula of dakene, what is the molecular formula of nonene, what is the molecular formula of octene, what is the molecular formula of heptene, waxaan oo dhan waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo daawadaha qiimaha badanow waxaana meeshan u keenay inaad si fiican iskaga xifdidid meeshan waxaa yaala iubag name iubag ay bixiyeen ethene oo kale waa kana molecular ethene molecular formula waa kana ilaa octene hadaytana waa soo sheegay waxyaabahan inaad iska xifdid isku day waa kana condensed structural formula marka la qoraayo like this ayaa loo qoraa like this okay pentene oo kale waa kana qaabka loo qoro waxyaabahan condensed structure qoray ayaan usoo sharaxnay melting pointiga uu yeelanayo ethene marka la joogo ethene boiling pointigiisana waa kaasaa waxyaabahan inaad si fiican iskaga fiirfiirido daawadaha qiimaha badanow inaad isku day daawadaha qiimaha badanow alkenisku wuxuu leeyahay qaacidada la yiraahdo c sama nh2 sub 2n intaana u taagan number of carbon ethene waatana molecular formuladeeda molecular formulada waatana propene molecular formulaha loo soo gaabiyo waatana butene haddii la yiraahdo molecular formulaha loo soo gaabiyo waa kana marka inta ay ku taalana waa ethene waatana markan maxaa waaye waa structure ahaan ayaa loo qoray structural formula haddana waatana waa propene oo loo qoray as structural waxaan dhan waa isleeyihiin kana waa ujeedaa waa butene oo structural ahaan loo qoray tusaale ahaan oo kale hydrogenada waxay ahaayeen 8 kaarboonaduna waa 4 hydrogenada 8 ka tirso 1 2 3 4 1 2 3 4 hydrogenada waa 8 inta waa 6 hydrogen ka tirso kaarboonada ka tirso marka haddii lacala lagu weydiiyo waxyaabahan inaad daawada ka jawaabi karto isku day daawadaha qiimaha badan oo the number of carbon atom and hydrogen tirada carbon atomka tirada marka la raadinayo number of carbon atom iyo hydrogen atoms of alkene waxaa la isticmaali karaa qaacidadan waxaa lagu dhahay waxaa soo heshaa number of hydrogen atom in alkene haddii kaarboonadaada aad haysatay 5 waxaad haysataa number of carbon ayaa waxaa haysataa 5 waxaa lagu diray inaad soo heshid waxa la yiraahdo hydrogen way fududahay su'aashan inaad raadisid waxaan leenahay hydrogen maxaa lagu helaa hydrogen waxaa lagu helaa 2n hydrogen waxay la mid tahay ayaan leeyahay 2 maxaa ku dhufan doonaa number of carbonki meeqa ayaa la siiyay 5 ayaa la siiyay bracket ku xir hydrogenadeedu waxay la mid yihiin labadan tiro isku dhufo waxay noqon doontaa 10 ayay noqon doontaa hydrogenate mise haystaa 10 markii kaarboonadu ay 5 yihiin hydrogenaduna ay yihiin waa bentene tan cagsigeeda waxaa la mid ah haddii lacala lagu siiyo hydrogen waxaa lagu siiyay 10 hydrogen waxaa lagu diray number of carbon soo raadi ayaa lagu dhahay tusaale ahaan oo kale hydrogen maxaa lagu heli jiray 2n ayaa jirta soo ma waxaa leeyahay 2n ka waxaa geysaa inta gey hydrogen maxaa lagu heli jiray
hydrogenkan haddana ha soo wareej maxay noqon doontaa hydrogen ayay noqonaysaa. waxaan leeyahay 2n waxay la mid tahay hydrogenada imisa haystay 10 ayaa hydrogenada imisa haystay 10 ayaa haystay. number of carbon maxaa ku dhufsan laba meel kasta u qaybi laba waxaa sameysaa intana u qaybi number of carbonkii waa imisa hydrogenada waxaa number of carbonkii waxaa haystaa 5 ayaan soo helay. marka labadoodii aan isku gudadiyey mar waxaan ku raadiyay hydrogenta mar hydrogentii la isiyaan dib u celiyey. marka waa kaasa marka waxaan u maleynayaa daawadaha qiimaha badan oo haddii casharka aad si fiican u fahantay ina subscribe noo saarto isku day sidoo kale gumaleelka aad furatid. waxaa lagu dhahay find soo hela the number of carbon atom of alkene hydrogenada waxaa haystaa 4 salaam kale maanta waxaa haystaa 4 hydrogen haysataa 4 hydrogenada waxaa waaye waa 4 maxaa lagu diray number of carbon lagu diray qaacidada maxaa ku heli jirtay 2n waxaan leeyahay marka hydrogenkii wuxuu la egyahay hadhe 2n kan marka intaa 2n kan wareej xaagee marka waxay noqon doontaa 2n waxaan leeyahay 2n waxay la mid tahay hydrogenada imisaan haystaa 4 ayaan haystaa. inta maxaa ku number of carbon waxaa ku dhufsan 2 ayaa ku dhufsan inta waxaa qaybinaa 2 ayaan u qaybinaa intan waxaa u qaybinaa 2 ayaan u qaybinaa waxaan isla bixinaa labadaan isla bixinaa number of carbonkii waa imisa inta u qaybi intan u qaybi number of carbonkii waa imisa waa 2 number of carbonkiga waa imisa waa 2. marka waxaan leenahay kaarboonka labaad hydrogenadan waxaa haystaa 2 so marka wax kasta maanta way ku fudud yihiin marka so number of carbonkii waa imisa waa 2 so sheekadan haddii lacala la weydiiyo waa inaad ka jawaabi karto marka number of carbonkii meeqaan haystaa 2 ayaan haystaa waxaan haystaa number of carbonkii meeqaan haystaa hydrogen markii hore 4 haystaya oo number of carbonkii maxaan soo helay 2 inuu yahay soo ma helin hydrogen hore meeqa la isiiyo waaye meeshaas iska fiiriya hydrogen 4 la isiiyo markii hore markan maxaa waaye marka waa ethene waa maxay ethene waa maxay waa ethene kan marka iska dhaaf 2 carbon waa soo heshay hydrogen 4 hore u haystay marka waxaa waaye ethene. so marka waxaan jeclahay daawadaha qiimaha badan oo ina fahantay sida number of carbon loo soo saaray waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa la yiraahdo classification of alkeneska inaan abalayn ku sameynaa rabnaa. waxaa leenahay alkenes are classified waxaa loo kala saaray two groups laba qayb loo kala saaraa laba qaybna waxay noqon doontaa symmetric alkenes midna waxay noqon doontaa asymmetric alkenes. haddaan u gudagalo daawadaha qiimaha badan oo symmetric alkenes maxaa la dhahaa are alkenes waa alkeneska in which two same groups laba group oo isku mid ah are being attached ay ku dhagan yihiin to the carbon double bond macnaha marka loo fiiriyo waa isku mid tusaalahaan oo kale meeshan waa 2 carbon iyo waxaa taala hal hydrogen iyo 2 carbon iyo 2 carbon inta waxaa taala 2 carbon iyo 2 carbon marka intaan iyo fiiri tusaalahaan oo kale intaan iyo inta fiiri 2 carbon iyo waxaa taala intaan waa same group marka loo fiiriyo waa maxay waa same group inta marka loo fiiriyo waa isla egyihiin ma kala duwana wax different ah uma dhaxeeyo maadaama wax different ah labadoodan aysan u dhaxaynin inta 2 carbon double bond ka inta 2 carbon double bond ka jirta waxaan leenahay waa same group maadaama same group ay arrintan noocan waxaan leenahay waxaan u bixin doonaa waxa la yiraahdo symmetric alkenes waxaan leeyahay doonaa waxa la yiraahdo symmetric alkene
are alkenes in which two same groups waa laba group isku mid ah are being attached waxay ku dhegan to the carbon carbon double bond ay ku dhegan yihiin. sidoo kale haddana waa kana haddana dib u eegno inta waxaa jirta saddex carbon jirta saddex carbon intan waxaa jirta saddex carbon jirta marka waa saddex carbon iyo saddex carbon marka waa same group waaye. marka double bondiga waxa ku dhegan attached to the carbon carbon double bondiga waxa ku dhegan maxaa waa same group marka laga fiiriyo dhinaca midig iyo marka laga fiiriyo dhinaca bidix. marka waxaan leenahay xaaladda noocaas waxa waaye waa wax la yiraahdo symmetric alkenes. marka waxaan leenahay asymmetric alkenesku waxaan leenahay are alkenes oo alkene in which two different groups waa labo group oo kala duwan are being attached ayaa ku dhegan yihiin to the carbon carbon double bond ay ku dhegan yihiin carbon double bondiga ayay ku dhegan yihiin. tusaale ahaan oo kale inta waxaan leenahay meeshaan inta waxaa yaala marka inta laba carbon jirta oo double bond ka jirta intana meel carbon ka jirta tirso waxa waaye waa saddex carbon intana laba ku jirta same ah waa different. marka carbonada inta ka jira double bond iyo carbonada inta ka jira waxa waaye way kala badan yihiin maadaama ay kala badan yihiin waa different groups are being attached waxay ku dhegan yihiin double bondiga marka loo fiiriyo ayaa leenahay. marka hadda inta 1 2 3 saddex carbon inta laba carbon tal marka double bondiga maadaama double bondiga inta uu ku jiro waxaan leenahay inta waxa ka jira saddex carbon inta laba carbon marka waxa waaye waa different waa laba iyo saddex kaliya wax double bondiga ah. xaaladda noocaas markay dhacdo waxaan leenahay waxa loo yaqaanaa asymmetric alkenes. maxaa leenahay tusaale hadda kan oo kale fiiri way kala badan yihiin inta saddex carbon waaye inta marka loo fiiriyo waa afar carbon inta afar carbon jirta inta marka loo fiiriyo waxaa jirta waxa la yiraahdo saddex carbon. so marka double bondiga waxa ku dhegan meesha waxaa yaala waxa la yiraahdo alkeneska yaala waa different groups are being attached to the carbon double bondiga different way kala duwan yihiin maadaama ay kala duwan yihiin arrinta noocaasa waxaan leenahay asymmetric alkenes ayaan u bixi doonaa. daawadaha qiimaha badan oo waxaan rabnaa in isla fiirino si fiican iskula fiirino waxa la yiraahdo nomenclature of alkenes. nomenclature of alkenes markaan ka hadlayno waa in la magacaabo waxa la yiraahdo alkeneska horta waxaan leenahay alkenes are named waa la magacaabay two different system laba nidaam oo kala duwan loo magacaabi karaa. labada mid waxa waaye nidaam waxa la yiraahdo waa common system kan waa nidaamkii hore ee dunidu isticmaali jirtay. IUPAC-na waxaa la yiraahdaa waa nimankii 1958 xeerka IUPAC soo dejiyay. labadan haba loo magacaabi doonaa mid waa common system midna waxa waa IUPAC. marka waxaan rabnaa inaan galno habka ugu horeeya la yiraahdo common system-ka rabnaa inaan galno asagoo IUPAC-ga asagoo waxaan qaadan doonaa oo hal ciwaan oo nomenclature of alkene oo IUPAC ahaan aan u magacaabi doono laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ka hormarno waxa la yiraahdo nomenclature of alkenes waxa la yiraahdo. marka waxaan leenahay common system in this system nidaamkani alkeneska are named waa la magacaabaa using iyadoo la isticmaalayo appropriate prefix horgalaha ku habboon and suffix galaha ku habboon iyadoo la isticmaalayo. macnaha markaa rabtid common system inaad isticmaasho nidaamkan waad magacaabi kartaa adoo isticmaalaya prefix horgalaha iyo suffix iyo gadaalgalaha oo la yiraahdo aileen. marka gadaalgalaha isticmaali doonto muxuu noqon doonaa aileen. marka waxaan dhihi doonaa tusaale ahaan oo kale meeshaan double bondi ayaa yaala maadaama double bondi oo yaalo waxaan ku magacaabi doonaa meeshaan oo kale hadda double bondiga yaalo waxaan dhihi doonaa markii common name ahaan ethene oo kale soo ma ahayn gadaal waxaa uga dari doonaa waxa la yiraahdo tusaale YLEN aan uga dari doonaa. tusaale ahaan oo kale haddii meeshaan ay taalo double CH3 CH double bond CH2 marka hadda kan oo kale hala magacaabo hadii la yiraahdo see loo magacaabo mataqaan meeshan double bond yahay waa 1 2 3 carbonada waa 3 tusaale hadda kan oo kale waxaa la dhahaa ethylene la dhahaa. marka meel waxaa jirta aan isticmaali doono the position of the double bond meesha double bondiga oo tusaale ahaan kale waa kana double bondigan aad meesha ku arki doontid double bondigan the position of the double bondiga is indicated by the Greek letters waxaa lagu muujin doonaa xarfa Greek xarfaha Greek ah mid wuxuu noqon doonaa alpha ayaa la isticmaali doonaa waxa la yiraahdo beta waa loo qaadan doonaa sidoo kale waxaa la qaadan doonaa waxa la yiraahdo gamma waa la qaadan doonaa waxa la yiraahdo gamma waa la qaadan doonaa tusaale gamma waa tan waxa booska double bondiga waa u qaadan kartaa
beta positionka double bondiga waa u qaadan kartaa alpha positionka double bondiga kaarboonka koowaad waxaa loo isticmaalaa double waxaa loo isticmaalaa alpha ka labaad beta ka saddexaadna gamma waa kaasa saas aa lagaa rabaa for example tusaale ahaan waxaan leenahay meeshaan double bondiga oo ethylene ayaa yaala marka waxaan la isticmaala waxa la yidhaha alpha ethylene aa dhaha maxaan dhahay alpha ethylene tusaale meesha waxaa yaala 1 2 3 4 maxaa waaye butylene alpha butylene aan leeyahay markaan magacaabay aniga maxaa leeyahay alpha butylene markaan magacaabay maxaa leeyahay alpha butylene oo markasta waxa waajib inaan isticmaalo ylene wax la yiraahdo markii common system ahaan wax loo magacaabayo waaya common system ahaan markaan u magacaabayo waxa waajib inaan isticmaalo wax la yiraahdo ylene inaan isticmaalo waa muhiim maxaa laga rabaa inaan isticmaashid wax la yiraahdo ylene daawadaha qiimaha badan oo ylene in la isticmaalo tusaale hadda kanoo kale wuxuu noqon doonaa waa probe aan leeyahay markaan probe dhaho bal fiiriya ila daawo probe aan leeyahay probe markaan dhaho gadaal maxaa ugu daraa propylene maxaan leeyahay propylene as a common name gadaal maxaa ugu daraa marka mataqaanaa gadaal maxaa ugu daraa intaan ku darayaa intaan aan gadaal uga daro soo aragtay waa ujeedaa ylene-taas oo suffixka gadaal gala ah marka positionka oo double bondiga waxaa lagu muujiyaa alpha Greek waxa la yiraahdo xarfa Greek ah sida alpha oo kale beta oo kale gamma oo kale xarfahaas lagu muujiyaa marka daawadaha qiimaha badan oo casharkii nomenclature of alkenes oo IUPAC system ah isagana casharkan ku xiga waan soo dhigi doonaa haddii la yiraahdo daawadaha qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa haddii aad channelka ku cusub tahay inaad subscribe noo saartid taasoo noo noqonaysa dhiirigelinta koowaad in casharadan si degdeg ah aan usoo boobsiino sidoo kale in ardada Soomaaliyeed ay faa'iideystaan anaga markasta waxaan u diyaarsanahay in ardada Soomaaliyeed aan u faa'iideeyo ma aan channelkan markii la furaayay in lacag laga sameeyo looma furin laakiin waxay tahay oo kaliya dunidu inkastoo ay wax kasta isla lacag laan aysan socon karin 100% aan ognahay oo number 1 iyadoo ay tahay laakiin waxaan doonaynaa daawadaha qiimaha badan oo in ardada ay habab kala duwan ku faa'iideystaan haddii private ay dhigtaan iskuulka ay dhigtaan bal guriga markay tagaan bal haddana bal maadadii ha muraajacayaan ayaan isdhahnay bal daawade aad baad ayaad u mahadsantihiin casharkan iyo casharada ku xiga waxaan rajaynaa in ay noqon doonaan midka kale inuu ka sii xiiso badnaa doono inkastoo haddana aan ka cudur daaranaynay in muuqaalkeena casharkii u maqlay muuqaala in aadna arkay laakiin isagoo powerpoint oo sharaxaadna arkaysiin waad ku mahadsantihiin ayaan leeyahay kusoo dhawow markasta hoyga janaalka masraxa official